عرضينا أذقلي عزنو دفاع ديو بدلن عرض ديو أبد عيلة مدننا عرضينا أذقلي عزنو دفاع ديو بدلن عرض ديو كما دوحة الله هركيني سنياشا كلا محمد عبد الله السعيد صدن يلحسن جرة إن فاطمة أو موسى كل شيء دجن قال كعيو كحنا صدق الدحى يا عبد الله فارح اسمان لباتن يو تضرب سنة جرة إن عنبرو أشكر كحنا صدق مرتمها بوليسك ربنا أيكيهين دولة بطلان يشعل كذا نوع يدم بجلوسه يديه أيهين غضب كأفراد حير كلا دجالن كمان دورية دولة بطلان iyo qodobka shanaad xeerka la dagaalanka maandooriyaha isla xeerkaas maxkamaddu markay aragtay eedda xafiiska xeelaalinta gobolka Mudug ay ku taariikhaysan 27 bisha 3aad 2022 maxkamaddu markay ay dhageysatay jawaab celinteeda sanayaasha oo ka warbixiyay xiriirka ka dhaxeeya ayaga iyo falka lagu eedeynayo falkaas oo ah ka ganacsi iyo cabid maandooriya markay maxkamaddu aragtay lana hor keenay maxkamadda khamri tiradiisu ay dhan tahay 17 kartoon oo khamri ah iyo 17 dhala iyo gaari nooha ah oo leh taariikhda Puntland iyo sidoo kale taariikhda dowladda Soomaaliyeed markay maxkamaddu aragtay gabagabada xafiiska xeelaalinta gobolka Mudug iyo ka warbixinta ciidankii soo qabtay warbixinta ciidankii soo qabtay eedeysanayaasha maxkamadduna ku qanacday warbixintooda go'aanka maxkamadda soo kaadimada gaalkacyo gobolka Mudug waxay ku xukuntay mid walba oo kamid ah eedeysanayaasha kala ah maxamed cabdullaahi siciid 36 sano jira ina faaduma aw muuse iyo cabdullaahi faarax ismaan 27 sano jira ina cambaro ashkir 7 sano oo xariga si waafaqsan qodobada kala ah أفراد يشناد حيرك لدجالك ماندورية دولة بطلان يصيدوا كلا $800 ومتكيبة وجناحة صدوا كلا محكمة سوا فقسن قلب كبقول سديتني يلبو وحيد دولة بطلان وحكمت جاري إنه هذا الجو دي ماندورية محكمة الله كياني صدوا كلا محكمة وحي أمر يساع إذا كنا بتجليده إن أي بربريان أو إرهاد تيران 17 كرتون وخمرية iyo 17 dhalo oo dheeriya la raad reebo lana tirtiro dhamaanto cidii ku qanacsanay waxa uga furan racfaan ku mudaysan 30 casho